يشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إخوتي الأعزاء ودرسيني أفراد تفسير القرآن الكريم كان وحكى بالله ما يا عشر كانوا ما عاوة سورة الله إلى سورة البروج البروج وجمع برج إريق برج أو مفرد أهبا بروج لغو جمعيا وحاني سورة وغو جرتا dhaar ilaahay uu ku dhaaranayo buruujta iyo samada buruujta leh buruuj ama burji af carabiga waxay ku yiraahdaan waa fooqyada dhaadheer ee mundaradaha ah ayaa horta burji la yiraahdaa samada inaga sarreysa buruujta ku taala laba macno ayay culimada tafsiirku ay ku xambaaraan bacdu ulama waxay yiraahdaan xidigaha waaweyn ee wareega oo barigii la hore la oran jiray 7 sayaaraad la oran jiray waagi dambana laba dambe la ogaado 9 sayaaraad la yiri maantana cilmiga casrigii uu ogaado ilaa 12 wareeg maxaan ku dhaa xidigaha waaweyn ee wareega lagu tilmaamo hadduu cilmigu soo durkana laga yaabo in qaar kale la iktishaafo xidigaha waaweyn ee wareega cadceedu ka mid tahay ayaa buruuj la yiraahdaa bay yiraahdeen culimada qaarkoodna waxay yiraahdeen waa meelaha ay ku hoydaan xidigaha waaweyn ee wareega waa jabadka ay degaan xidigaha waaweyn ee wareega oo sida buruujta oo kale iyo fooqyada oo kale ah tusaale ahaan cadceedda waxaa la yiraahdaa 28 manzil ama 28 guri baa samada uga samaysan guryahaas ay u kala hoyataa 13 cishaba guri bay ka guurtaa guri kale ay ku gaadhaa waana sababta dhalisaba yiraahdaan afarta xilliya aynu naqaano gu iyo jilaal xaga iyo dayr manaasisha ay u kala guurguurayso oo wareegeedu wuxuu noqonayaa 360 maalmood iyo maalin rubceed ayay wareegeeda ku dhamaysataa dayuxuna tusaale ahaan
8 burji baa ugu yaala ama 8 fooq baa ugu yaala samada habeenkiiba ma 24 saacba hal meel laba guri buu u kala guuraa kuwa kale wareegaana guri caynkaas oo kala ah ayay leeyihiin guriga cadceedda laxaadka weyn ee dhulkeena intaasoo 100 oo kun oo jeer ka weyn hooynaya asaga mucjiso ah marka ilaahay tabaaraka wa tacaala maanta indheheena wuxuu u laalayaa samada wuxuu leeyahay cilmiga samada iyo xidigaha عجائب واوين باكوتشرو أن كدارنا يا يدقيستا قال الله تبارك وتعالى مركو إلى هاي دارته ربي سبحانه وتعالى وحكو حكسين يا قصة الله يابله وآد يا آد وحنون بضن أو صومرتي ضدكي مسلمين تهاقار كمدا قصة داس وحاد ليي نين بقره قالوا إله نمشي جنشري أو قبل كالنجران imika sacuudigu u taliyo oo dhinaca waqooyiga soo xiga oo markii horena Yaman baa u talin jirtay waxa la oran jiray Dhu Nawas ayaa boqorka la oran jiray qabaa'ilka ximyar la yiraahdo carabta ayuu ka dhashay waana qisada aad ka heli doonto kutubta xadiidka muslim iyo qeyrkii wiilkii yaraaye u dhaxayn jiray sixroolaha iyo zaahidka ee markii dambe dhafoorka laga toogtay inta qowmkii rumeeyay ilaahay la soo ururshay sakadaha dhaxdooda waraarka laga jeexay ee dabka lagu oogay muslimiintiina iyagoo nool dabka lagu daadinayay sida maanta ka dhacda barmo oo kale aynaan ka warhaynin dad muslimiin oo nool ba iyagoo nool dabka lagu gurayay sababta loogu gurayayna ilaahay baa ka warrami doona kuwii sidaa falayna ilaahay jawaabtuu mariyay ayuu tilmaami doonaa inta marka aynu ka gudubno wuxuu ilaahay suuradda kaga warramayaa labada dariiq ee la kala hayaa halkay ku intihoon doonaan dariiqa xaqa iyo dariiqa baadilkii halkay ku afgo'aan ay ku soo afmeeraan ayuu ka warrami doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kuyuuga marka halka maanta laga sii qabsanaya labada dariiq midna jannadu ku afgo'aa midna naartu ku afgo'aa mid walba abaalkiisana waxba laga tilmaami doonaa قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري والسماء سمدان كدارتي ذات البروج أصاحبك فوق يد واوين حدقها وريقا أهويدان واليوم الموعود وحن كدارتي مالين تلوب اللنسيهي مالين تلوب اللنسيهي ومالين تقيامه أيان ذين كدارنيا وشاهد مد شاهد وحركه ومشهود إيا مثل أركيان ذين كدارنيا وشاهد كي وحركة ومشهود إيا كلا أركيو شاهدك الله مشهودكنا وأضامها شاهدك نبي محمد مشهودكنا وأمديسة شاهدك ومالنت محانك هذا جمعها مشهودكنا ومالنت عرفه انت بلا يري waxaan idin ku dhaartay saddexda mas'ale culus baan ku dhaartay waxaan idin ka warramayaa qutila waa la nacladay ashaabul ukhdudi kuwii waraarada iyo jeexjeexyada weyn qoday ukhdud waxa la yiraahdaa jeexa weyn iyo waraarka weyn ee dhulka laga dilaaciyo qutila waa la nacladay ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu xibra al-umma wuxuu isagu oranayaa hadaad quraanka kariimka ku aragto qutila waxaad ku macnaynu lucina waa la nacladay qutila al-kharraasuuna iyo wixii la mid ah ibnu Abbas baa sidaale qutila waa la nacladay ashaabul ukhdud kuwii waraarka qoday ee waraarka jeexay qutila waa la nacladay ashaabun naari dadkii naarta oogay naartii daatil waquudi xaabada iyo shidaalka u saaxiibka ahayd oo ashaabul ukhdud kan ka bedelay qutila waa la nacladay أصحاب النار كوي نارت أهل كذا هاي نارت الشتاء نارتي إيو ضبكي ذات الوقود حابضة إيو شدالك الأصاحبك أهيد كوي حابضة إنتي أروريان نارت كأوغي إيش شدين كوا ويان والا نعلضي إذ وقت بين نعلضي كل عضي هم إيو قعود أي فدفديين عليها أي على النار نار تمركي هوريين أي هدنا sidii bandhig intay sameeyeen bay kuraasi dhigteen oo naarta dhinaceedii bay fadhiisteen
wahum iyagu maxay kuraastan meesha u soo dhigteen maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina dadka ashahaatay ee mu'miniinta ilaahay rumeeyey bay shuhuudun daawanayaan waxay ku mabsuudayaan qaraxa maskaxda muslimiinta markay dabka ku ridaan iyo uumiga ka baxaya muslimiintaasay iyagu ku mabsuudayaan oo waxaa ku dhacay marad ay ku yacni amraadda nafsiga ee bini'aadmiga qaar ku dhacda waxaa ka mid a inay ku raaxaystaan mashaqada iyo dhibta bini'aadmiga wahum iyagu markay kuraastaas soo dhigteen ay fadhfadhiyaan calaa maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina mu'miniinta shuhuudun way daawanayaan wamaa naqamuu wax allaaliya wax lagu dhaleecaynayaa ma jiro minhum muslimiinta la shidayo wax allaaliya wax eedahoo loo hayaa ma jirto ilaa aan ka ahayn an yu'minuu intiqaamka naqmigu waxa weeyaan waa dhaleecayntiiyo eedayntaa naqmi laydha wamaa naqamuu maku eed kaloy sameeyeen iyo dembi ay galeen oo eed looga dhigay ma jirin minhum muslimiinta dabka lagu guray eed lagu oogay oo lagu maxkamadeeyey ma jirin ilaa aan ka ahayn an yu'minuu inay rumeeyeen baa eed looga dhigay bilaahi alle allihii alcasiizi awoodda badnaana xad ka adkaan karin alxamiidi ee la mahadiyo ilaaha awoodda badan ee la mahadiyo inay rumeeyeen baa dembi noqotay baa ilaah yidhi alladii allihii inay rumeeyeen lahu isaga uu u sugnaa mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samada iyo dhulka samooyinka iyo dhulka allaha iska aanaystee iska leh allihii lahaabay rumeeyeen baa dembi noqotay wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shahiid wax kastoo uunka ka dhacaya ilaahay wuu arkayaa maalintaana wuu u hiilin karay muslimiinta dabka lagu shidayo waxaa cashar looga dhigayay ummadda muslimiinta ahee ka dambaysa in la tuso inay diintu ka qiimo badan tahay adduunka iyo naftaba oo adduunkan ay soo mareen dad naftoodii u huray towxiidkoodii iyo waxay aaminsan yihiin taasaa markaa cashar laynooga dhigay in badanna in loo gargaaray muslimiin ilaahay dartii loola collaytamay iyana soo aragnay oo muuse iyo fircoon yaa guulaystay muusaa guulaystay oo ka tiro yar nebiyullaahi maxaanku idhaahdaa huud iyo qowmkiisii yaa guulaystay nebi huud nebiyullaahi yuunus iyo qowmkiisii yay guushu raacday nebiyullaahi yuunus nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddii quraysheed ee gaalada yay guushu raacday nebiyullaahi moxamed dhinaca kalena in laystuso oo mar walba guul joogtiihi lama fila yacni in la fisho maahane mararka qaarkoodna dhinaca kale inay u dhici karto ku xisaabtama weeyaan ilaahay markaa xaaladdaasi socotay wuu arkayey kullu shayin shahiid wax kastana ilaahay wuu arkayaa haddaba ina aladiina kuwa fatanuu jirrabay ee imtixaamay almu'miniina mu'miniinta imtixaankaa adag soo mariyey والمؤمنات هبلها مؤمنات كامتحان كأي جرب كاكوا أجيستي ثم دبادنا لم يتوبوا أن كتوبة كينين وانكسروا نقولين فلهم وحيليهن عذاب جهنم عذاب كجهنم أي أهل كده هليان ولهم وحيليهن عذاب الحريق جبشدة عذاب كده أي جلي دونان الحريق وجبشدة عذاب كده أي جلي دونان كوا مسلمين تجبي إن الذين كوا آمنوا إله رميي وعملوا الصالحات عمل صوبنا الراعشي لهم وحي يقول ليهن جنات جنوين إيابيرو تجري أي قلقليصو من تحتها هوستيدا الأنهار وبيال جنوين أي وبيال قلقليان بالغو أبال مرين ذلك الفوز الكبير هودا ملآن ما أنت ييكو هوس مرين هداد إن ليبان أد وحنقل تاغيسو ذلك كاسبا الفوز الكبير ليبان توين كما دنبيستي وإنات شندا قيب كهشو شندا سو عرضها كعرض السماء والأرض عرك إيانولك والله اسبربر لغيو كوين أيي لأكتي هداد بقعد كويدو الله إليه ما أنت أديك خساري إن الذين كوي إن بطش ربك قبشد إلهاغو لشديد لو والله بان كدارته وي أدكتاي إلهي مركو قوم قبتو قبشدي سلغا مفكدو وي أدكتاي إنه
huwa innahu isagu oo alle ah huwa isaga oo alleheena waa ku celis yubdi'u isaga hindisaha hore iskale markuu shay abuuraya meel la kama qisho meel la kama soo dheegto hindisaha ugu horeeya isaga ilaahay hindiso injineerkiisa innahu alle huwa isagu yubdi'u isaga bad'a oo bilaaba shayga la bilaabayo ويعيد إساقنا سور رقال سور علين دون الشيء والربو وهو إلهي الغفور سامحات بدنوية إلهي أدون كيسا هدو كن إيا لكتر أدون وكوغفور رب حدود ديسا إلهي دايرين مايو مالنتو توبة كانوا إلهي واكا أقبلا المجيد إلهي وإله مجيد هو أمان إيا شرفبا إهلوا فعال وأفلد بدنه آدبو أفل كرا إلهي وفلين كرا لما يريد آدبو أفليا أو أسميا وحو مراده وح الله لي وح عرقلدين كرم مراد كيس لما أركو هل أتاك حديث الجنود إنما كسوغاري وركي لغا شيغي عيدا مدي إصبحي ستضاها وأن أجيدو فرعون وثمود فرعون يثمود وركودي ما هيسا سيدي أي كدن بيين يعربتو ذا هذا تاريخ ذا هيسو الله إله إله معاصدين إيضو وركاسيا لبل إسكداي إيضو حالده دادكي هورسيدا الله غفلي بل إسكداي الذين كفروا كوا قالوا بين ما أنت النولي في تكذيب ولو حي كتران بينين أي إلهي أودي سبينين يان تاريخي هورنا وي أقريان هدنا أود إلهي ويبينين والله إلهي من ورائهم حق كهر ريسا محيط إلهي سكوير بوكها يايو إلهي وكو يعني وكو دور هيا نول بإلهي تبارك وتعالى وكسو كوبي كمان بحسن كران إلهي دنك يو عراران با محيط إلهي وعنا قبته وكور هيايو ويسكوريجي بل إسكداي هو قرآن مجيد آياتنا وحي معناين إيسا قرآن كان إيا كرامتي شرفت إلهي أكتيس وكلية بل إسكداي هو قرآن كان إنه ريا لما أنت قرآن وقرآن لأقريه مجيد أو إلهي أكتيس شرف كله في لوح وحو كدا بعيه هي لوح يعني الله يراه محفوظ لوح محفوظ ما الله يراه والديوان إلهي ليه هي وسماواتك عرشك هوستي سيالا oo maalintii ilaahay uunka iyo dunyada uu bilaabay ilaa intay dhammaan rabto waxa laaliyo wixii dhacdooyin dhici doono oo dhan baa ku qoran haddaad is odhan lahayd oo buugga ilaa dhacdooyinka iyo tirada caleemaha geedaha iyo ciiddeennan inta xabadood ciidda dhulka yani taala inta xabadood ay tahay iyo dhibcaha samada ka soo degaya iyo inta sanku neefle la abuuraya iyo inta dhimanaysa tolo buugga qaadaya baaxad weyna maanta waan ku fahamsiin karaa shalay samaya maanta waxaad haysataa jib yaroo intan la ego halkaa ku dhex jira oo wuxuu kuu qaadayaa ilaa iyo intaasoo kun oo muxaadaro kuu qaadaya waa wax yaroo aan culays badan lahayn oo lagu oranayo intaasoo GB buu ka samaysan yahay markaasaa macluumaadka iyo dhacdooyinka aad ku duubto oo dhan igadaa ku odhan maayo insaankiibaa waxaa yaree qaradaa leh abuurtay oo samaystay fakayfa rabbulcaalamiin ilaahayna maxaad u filaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala shay kasta oo adduunyadan dhici doona wuu sii qoray wuxuuna ku qoray buug iyo lawxulmaxfuud wax la yidhaah buu ku qoray ilaahay baanu agtiisa yaalla سورة الانشقاق سورة الانشقاق بالله يرهضا وانا مكي آياته هيدنا واشان إيو لباتان آيادود سورة الدار بيكو بالله بيسا وحيكالوكا ورمي دونتا وايها إن سوغي آخرو إيا شأني جيدي وحكشيجي دونتا وحيتلمامي دونتا بنا آدمي مركي قيامها يمادان qaarna kitaabkooda in midigta looga dhiibi qaarna bidixda looga dhiibayo taasuna astaan ay u tahay ninka guuleystay iyo ninka hoogay ayay tilmaantooda tahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaah baa wuxuu yidhi idaa goorta as-samaa'u samadan idinka sarraysaa in shaqat ay kala qarqararanto markay kala dildilaacdo waa waayo sugaya samada qiyaamahana iska leh
waayaha culayskiisu wuxuu keeni doonaa samadu inay dildillaacdo maalintaas samadu ay dildillaaci doonto waadinat way maqashay amarka ilaahay waadinat way maqashay min aluduni bay ka timi waadinat way maqashay lirabbihaa rabbi amarkii uu siiyeyna may dhega adkaanine amarkaa way qaadatay samadu waxuqat xaqna waa loogu leeyahay inay samadu amarka qaadato xaq baa loogu leeyahay sababta oo ah markuu ilaahay arlada iyo samada abuuray heshiis buu la galay wuxuuna ku yidhi i'tiyaa tawcan aw karha kolley waa ilaahay waa ateeci doontaane oo awoodaad ilaahay ku diiddaan ma lihidine masandullaa ku hoggaansanaanaysaan mise idinkaa ikhtiyaarkiinna ilaahay ugu hoggaansanaanaya labaduba waxay ku jawaabeen qaalataa aataynaa taa'iciin allahayow amara aadna siiso ma diidi doonno mar kale waa ka ilaahay inagu yidhi innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha annagu sidaasaannu addoommo kuu hoggaansan ku ahaanaynaa xil hana saarin bay yidhaahdeen maanta markuu ilaahay yidhi samayay waxaan kaa rabaa inaad dildillaacdo adinat lirabbiha rabbi way dhegaysato amarkii way qaadatay waxuqad xaqna waa loogu leeyahay waidaa goorta alardu dhulkanaad ku nooshihiinna muddad marka la kala fidiyo maxaa looga jeedaa buuraha iyo guryaha iyo geedaha kala qarinaya ayaa dhulka lala simi doonaa marka dhulka lala simo ee ay dhulkii uu wada sinaado ayuu dadku odhanayaa mabaaxad intaa la-eg buu dhulku lahaa ilaan markii hore buuraha kala qarqarin jiray sidii wax la kala fidiyey buu yaa la moodi ama is ahaan baaba loo kala fidin doonaa waidaa goorta alardu dhulkana muddad la kala fidiyo oo la kala jiido oo waalqat ay soo tuurto maa fiiha wixii dhexdeeda ku jiray oo dhan markay bannaanka u soo tuurto watakhallad oo ay iska soo faaruqiso watakhallad oo ay iska soo faaruqiso wixii gudaha ku jiray oo dhan makhluuqaadkii gudaheeda lagu aasay iyo dahab iyo dheemo wixii gudaheeda ku jiraya macdan alqat way markay soo tuurto maa fiihaa wixii dhexdeeda ku jiray oo dhan watakhallad ee iska soo faaruqiso gudaheeda markay bannaysay wada faaruqiso waadinad way aqbashay way dhegaysatay lirabbihaa rabbigeed way qaadatay amarkiisii markuu ilaahay ku yidhi uunka dhexdaada ku jira oo dhan waxba ha haynina soo saar haye bay tidhi waxuqad inay sidaa yeeshana xaq baa loogu yeeshay yaa ayuha alinsaan dad yow heedhe innaka adigu kaadixun waad tabcaysaa waad hawshoonaysaa kadxan dhibaato iyo hawl baad ku jirtaa dan baa la tilmaamayaa talo ayaa la ina siinayaa wuxuu ilaahay ka wadaa insaan marnaba horta nasiino kuma sugnid haddaad seexato dhinacaa ku daalo oo adiga isrogroga waa daalan tahay haddaad socoto waa daalan tahay haddaad fadhido waa adigan ruqruqaansanayo oo dhib baad ku jirtaa haddaad shaqaynayso waad dhididaysaa haddaad baryootamaysana waa adigan khajilaya ee wejigaagii iibinaya marnaba nasiino kuma jirtid haddaad ilaah kala caabudayso waa daalantoo waa tabcaysaa haddaad ilaaha xaqaa caabudayso waa daalantoo waa tabcaysaa haddaan marnaba aanay nasiino ku ahayn mar walba haddaad daalan tahay daal manfaco kuu keena maad shaqaysatid weeye kadxiguna waa tacabkiiyo hawsha ayaa kadxi la yidhaa dad yahow aan idin hoga tusaaleeyo ee kolley haddaydinaa nasanaynin tacab wax ku oola maa shaqaysataan weeye yaa ayuha alinsaanu yeedhmo insaan boo dhan baa lala hadlayaa loo caqli celinayaa yaa ayuha annaasu dadow heedhe innaka adigu kaadixun tacab baad ku jirtaa kaadixun waa tabcaysaa kadxan tacab ayaad waddaa ilaa rabbika ay ilaa liqaa'i rabbika ilaa intaad ilaahay kala kulmayso tacab baa aad ku jirtaa marnaba nasiina ma haysatid waan markaa taqdiim iyo ta'khiir baan aayadda ku sameeyey yaa ayuha alinsaanu dad yahow innaka adigu kaadixun waad hawshoon tahay kadxan hawl baad ku jirtaa
ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika intaad ilaahay ka hor imanayseed kala kulmayso marnaba nasan maysid famulaaqiihi waanad la kulmi ilaahay ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika intaad ilaahay kala kulmayso waana la hubaayo famulaaqiihi waabad la kulmi doontaa ilaahay shakina ma laha haddaba dadku labay u qaybsami dadkii tacabka iyo hawsha soo maray aan midkoodna nasin labaan u qaybinaynaa fa ammaa man uutiya ma ruuxii laga siiyey fa ammaa man ma mid bay noqotay uutiya la siiyey kitaabahu waa kitaabkii shaq camalkiisa biyamiinihi ninka midigta looga dhiibay fa sawfa yuxaasabu saban dhow ayaa lala xisaabtami doonaa xisaaban yasiiran xisaab aan cuslayn oo yasiir ah sidaa ma yeeshay sidaa ma yeeshay sidaa ma yeesho dulmar ah haa waan yeelay xumaantii waan kaa saamaxee soco si yaroo sahlan oo yasiira baa loola maxaanku dhaha loola jeexjeexaya wayanqalibu marka la guddoonsiiyo qoraalkiisii iyo kitaabkiisii yanqalibu wuxuu ku noqon doonaa ilaa ahlihi ehelkiisii xuuralcaynta iyo ehelkiisii adduunka ehlu jannaha noqday buu u tegi doonaa masruuran isagoo riyaaqsan wa ammaa man uutiya ma mid bay noqotay laga siiyey kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi u fiirso gacanta bidix inta laabta la dalooliyo baa dhabarka laga saarayaa gacantiisii ayaa inta laabta la dalooliyo ayaa dib loo jiidayaa gadaal baa la marinayaa marka kitaabka loo dhiibayana ilaahay arki maayo qofka mujrimkiihi kitaabkiisana gadaal buu ka guddooman doonaa gacanta bidixdoo laabta laga soo saaro gadaal loo saarayna waa looga dhiibi doonaa wa ammaa man uutiya ma ruuxii la guddoonsiiyeyba kitaabahu kitaabkii camalkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaal marka looga dhiibo kitaabkiisa fa sawfa saban dhowbaa yadcuu uu dalban doonaa hubuuran wuxuu u yeedhan doonaa hoog alla hoogayey baa ka soo hadhi doonta hubuurku waa hoogga mar allaaliya marka laabta la dalooliye bidix laga dhiibo kitaabkiisa fa yadcuu wuxuu dalban doonaa hubuuran hoog markaasaa la odhanayaa laa tadcu lyowma hubuuran waaxidan wadcu hubuuran kaiira oo hal hoogi maanta muxuu ku anfacaa maad hoog badan dalbataan hubuur iyo hoog buu u yeedhan wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naar olol badan buu geli doonaa allahu akbar innahu axadkan dambe kaana wuxuu ahaa markuu adduunyada joogo fii ahlihi ehelkiisa markuu la joogo masruuran mid aad iyo aad xumaha ugu faraxsan buu ahaa dunuubta iyo godobta uu gelaya ilaahay iyo addoommihiisa uu ka gelayo waxbaba iskagama tirin jirin waabuu ku faraxsanaan jiray marka uu dunuub galo wuu ka sheekayn jiray marka uu macaasi galo wuu ku faani jiray ehelkiisa markuu la joogana xumaantu uga sheekayn jiro ku faraxsana innahu axadkan aan ka warramaynee kitaabka bidixda looga dhiibay markuu adduunyada joogay danna wuxuu u maleeyey an lan yaxuura an lan yarjica wuxuu u maleeyey inaanu noqonaynin oo dib loo soo celin doono xawrku waa rujuuca weeyaan soo noqoshada xadiidkii nebigu waa kii ahaa calayhi الsalaaةu wasalaam acuudu bika min alxawri bacda alkawri ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa inaad dib ii celiso maraad hore ii marisay alxawr markaa waa celinta wey innahu axadkan daalimka ah ee bidixda looga dhiibay qoraalkii camalkiisu danna waxay la ahayd adduunyada markuu ku noolaa an lan yaxuura an lan yarjica inaanu sooba noqonaynin oo aan dib loo soo celinayn oon lala xisaabtamayn buu mooday balaa ha ka yaabina inna rabbahu rabbigii soo saaree soo celiyey kaana wuxuu adduunyadana basiiran bihi ilaahay waa daalacanayey falaa uqsimu bishafaqi falaa uqsimu waxaan idinku dhaaranayaa baa ilaahay yidhi bishafaqi guduudka cadceedda ka dambeeya markay liiqa dhigto iyo guduudka ka soo horeeya markay soo baxaysa cadceeddu shafaq baa la yidhaha shafaq alaxmar cadceeddii caddayd uunkan waxaa caseeyey ee madoobeeyey waa cilmi ilaahay shafaqaa axmarka ahee salaada maqrib iyo salaada cishaaye ay ku kala soocmaan
calaamadna u ah inuu maqribkii galay inuu maqribkii baxay ayaan idinku dhaaranaya wallayli habeenkaan idinku dhaaranaya wamaa wasaqa iyo wixii uu soo urursadayba wasaqa waa marka uu soo dumo ee uu yani hoosta soo gashado habeenka maanta iminka innagu waxaynu dad habeenkii hoosta gashaday baynu nahay kuwa lagu dhaaranayana waynu nahay wallayli habeenkaan idinku dhaartay wamaa iyo shay kasta oo wasaqa uu hoosta soo gashaday oo isagu daahiisii weynaa ku soo rogtay walqamari dayaxaan idinku dhaaranayaa idaa goorta ittasaqa uu dhammaystirmo ee igtamala waxaan ku dhaaranayaa dayaxu marka uu dhammaystiro waa bedri marka la yidhaha 14aadka hee intaasoo dhaar ah ayaan idinku dhaartay haddaad insaan caqli la tihiine la tarkabunna waxaad fanan doontaan ood fanan doontaan dabaqan mashaakil isa saarsaaran can dabaqin oo mid kaloo isa saarsaaran uga gudbi doontaan alla maxaa hawl idiin taal alla maxaa tacab idin sugaya maxaa balaayo iyo yaab midba midka ka dambeeya aad mooddo inuu isa saarsaaran yihin sida mawjadaha badda alla bini aadmi maxaa idin sugayo keni adkayda la wallaahi baan ku dhaartaya baa ilaahay yidhi la tarkabunna waxaad fanan doontaan ood fuuli doontaan mashaakilaad dabaqan kala sarsareeya can dabaqin oo haddana qaar kaloo kala sarreeya idiin gudbin doona alla maxay dhibiba dhib idiin gudbin doontaa ayaamo dhow famaa lahum laa yu'minuun bal sababta ii sheega aanay dadku ilaahay u rumaynaynin famaa lahum maxaa u sugnaaday ay ku sababayn karaan oo laa yu'minuuna billaahi alcadiim allaha weynee abuuray sababtaa iyo sababtaa iyo sababtaasaanan u rumaynayno aanu ilaah iigu ahayn carab bal ii sheega baa ilaahay leeyahay waidaa quri'a bini aadmiga gaalada ah haddii lagu aqriyo calayhim dushooda alqur'aanu qur'aanka haddii lagu aqriyo laa yasjuduuna maba saameeyo oo ma sujuudaanoo qalbigoodu maba qoyayaba bal iska daaye inuu qalbigoodu qoyoy sujuudaan iska badaaye ka dheer aladiina kafaruu kuwa gaaladiih yukadibuuna inay ilaahay ku bartaan oo ay khushuucaan oo ay sujuudaan iska daaye qur'aanka laftiisa ayay beeniyaan oo yidhaahdaan asaatiiru alawaliin waa sheeke baralayd waa diin iyo dacwaa baratamay oo kale weeyaan saasaabay u aaminsan yihiin baa ilaahay leeyahay iska daa inuu iimaan iyo yaqiin iyo khashye u kordhiyo waxay yidhaahdaanba waa been wallaahu aclamu ilaahna waa og yahay bimaa shay kastoo yuucuuna ay ilaashanayaan oy xifdiyayaan wacaa wuu ilaaliyey soo ma aha qalbiga waxay ku haystaan ay qarsanayaan ee gaalnimo iyo xiqdi ah ilaahay qalbigooda waa arkaya wallaahu ilaahay aclamu isagaa u cilmi leh bimaa shaygii oo yuucuuna ay laabta ku qarsanayaan fabashirhum waxaad ugu bishaaraysaa waa jeesjees waxa cadaab laysuguma bishaareeyo abaalkoodaa sidaasa in lagu jeesjeeso fabashirhum nebi allow u bishaaree kuwa sidaasa ee sababayn karila war ilaahay waxaad kaga ordaysa bal sheeg waxba ma sheegin war kitaabkan qur'aanka waxaad ku dafiraysa sheeg waxba ma sheegin ilaahayna waa daalacanaya ka sidaasa fabashirhum waxaad ugu bishaaraysaa bicadaabin aliim cadaab damqasho leh ugu bishaaree ila aladiina marka laga reebo kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey wacamiluu saalixaati kuwaasi in naar loogu bishaareeye ma gayaan ruuxa ilaah rumeeye camal saalixa la yimi kuwaas maya laba shardi baa lagaa rabaad ku guulaysanaysaa ood ku badbaadi aliimaan waalcamal asaalix ilaahay baan aqaanaa mana shaqaysanayo taas lagaa yeeli maayo ila aladiina kuwii mooyaane iyaga loo bishaarayn maayo cadaab aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyeye wacamiluu saalixaati camal suban la yimi lahum waxay leeyihiin ajrun abaal bay leeyihiin hayru mamnuunin hayru maqtuucin cadaab aan astaqfirullah abaal aan kala go'aynin oo joogto ah oo gaastii baa dhammaatay iyo daqiiqdii baa dhammaatay iyo oksijiintii baa godo wax lagugu kariyaa la waayey iyo maxaan ku dhaha dalabkaa dalbatay ma haya maxaan kuugu beddelaa ma jirto jannada markaad tagto wax allaaliya wixii adigu aad u muraaddo wuu dhammaaday lagu odhan maayo waa joogto suuratu lmutafifiin suuradda suuratu lmutafifiin ayaa la yidhaahdaa sha'niyo aad u badan oo aynu gudaheeda ugu tegi doonno ayay xambaarsan tahay waxaana ugu culus arrin ina khuseeyo maanta zamankan aynu nool lahay
waxayna ku saabsan tahay beegga iyo bardaanka waxyaalaha wax lagu kala miisaanto iyo waxyaalaha wax lagu kala miisto cadaab baa lagu mutaystaa hadduu khayaamo galo cadaab baa lagu mutaystaa hadduu khayaamo galo dadka ku dhaqmana ilaah tabaaraka wa tacaala dhulkooda inflation buu ka ridaa iyo sicir barar iyo cirka oo roobka laga waayo cirka uu maxaan ku gabnoobo ayaa laga helaa waana haddii miisaanka iyo bardaanka wax loo dhimo qofka xaqiisa laga nuqsaamiyo ruuxa sidaa u dhaqmana weyl iyo cadaabada kaloo dhani ka subxaanalaystaan ayuu heli doonaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala suuratu lmutafifiin almutafif waxaa la yidhaha ka nuqsaamiya tafafa wuu nuqsaamiyey makiyatun waa suurad maki ah aayaadkeeduna 36 aaya waa 36 aayadood weylun tog naareed weyl waxaa la yidhaha waadun fii jahannam waa tog rogmanayo naarta jahannama ku yaalla oo naarta kaloo dhani ka subxaanalaysato ay tidhaahdo ilaahayow waadigaa ha igu soo fatihinin waadiga cadaabku ka subxaanalaysta yaa gelaya lilmutafifiina dhagaha u fura mutafifiinta miisaanka nuqsaamisa mutafifiinta ayaa gelaya mutafifiin ilaahay baa macnaynaya dhegeysa adiga macno kaama rabto mutafifiin rabbi baa macneeyey mutafif maxaan uga jeedaa aladiina waa kuwa idaa goorta igtaaluu ay beeganayaan cala annaasi dadka markay wax ka miisaamanayaan yastawfuuna iyagu way dhammaystirtaan markay iyagu wax miisanayaan ay dadka ka iibsanayaan way dhammaystirtaan oo waxay odhanayaan ii wafee waidaa haddii kaaluuhum haddii ay beegayaan aw wasanuuhum ama ay bardaaminayaan beegga waxaan uga jeedaa wixii galaan iyo lagu miiso maala caanaha waa la miisaa hadhuudhka waa la miisaa daqiiqda oo kale meelaha maala markaad hadhuudha tagto waxay leeyihiin galaamo laysla yaqaanoo lagu miiso waidaa kaaluu haddii ay beegayaan oy dadka u beegayaan oo ay galaanna u miisayaan aw wasanuuhum ama ay u bardaaminayaanna yukhsiruuna dadka way ka nuqsaamiyaanoo waxbay kala hadhaan sidee loogala hadhayaa in yar tusaale ahaan bal tusaaleaan idin siinaya sida loo hoogaye iminka haddaad suuqa aad tagto maxaanku idhaahdaa tamaandhada iyo lagu miiso tamaandhada waxaa lagu miisaa daasad yar oo lagu keeni jiray saliidda daasad kastood isdul taagto hareerahay ka soo diistiisan tahay markaad tagto xero hadhuudha mid ilaahay u naxariistay mooye intooda badan galaanka ay wax ku miisayeen hoostuu ka soo garaacan yahay hareerahana waa ka diisan yahay bal inuun in wax kuu hadhaan bay isleeyihiin haddaad iminka eegto fidhiqadan yaree gaasta lagu miiso haddaad eegto way diisdiisantoo dushay ka garaacan tahay war haddaan cadaab laga baqanayo maxaa loo waayey daasad xagga hoose ka soo garaacanoo bannaanka yacni loo soo garaacay waa nooc khayaamo ah ama ha ogaado kan wax miisaamaya ama yuu ogaane dembi baa ugu sugan markay iyagu wax beeganayaan way oofi yeeshaan markay dadka u beegayaan ama u bardaaminayaanna way nuqsaamiyaan alaa yadunnu armiyaanu ka yaabaynin ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna in la soo bixin doono innaba malaa kama yaabana liyowmin maalin la keeni doono cadiimin aad iyo aad u sha'ni weyn yowma maalin baa in la keeni doono yaquumu nnaasu dadku aysa soo tubayaan lirabbialcaalamiina rabbilcaalamiinka hortiisa aysa soo tubayaan maalintaa malaa haabkaba kuma hayaan kalla ha ka yaabina oo arrinku sidaa khayaamadaasun ku socon maayo hadhowna la isxisaabin maayo taasi ma jirto inna kitaaba alfujaari qoraalka iyo liiska dadka faajiriinta ah wuu qoran yahay lafii sijiinin wuxuu ku qoran yahay boos cidhiidhiya sijiin waxay ka timi min asijni sijniguna waa cidhiidhi baa sijni la yidhaa qofka mujrimka ahee sidaa ku dhintay aan towbo keenin liiskiisa waxaa lagu qorayaa fayl yaroo cidhiidhiya oo meel cidhiidhiyoo naarta ah baa la dhigayaa xafiis yar oo naarta ku yaalloo cidhiidhiya baa la dhigayaa isagoo kitaabkii iyo liiskiisu halkaa ku qoran yahay kalla ha ka yaabina axad baxsan doonaa ma jiro inna kitaaba alfujaari faajir waxaa la yidhaahdaa ninkii ilaahay xuduuddiisa intuu qararoo dilaaciyey
dulmiga u gudbay baa la yidhaa faajiriinta xadgudubka samaysay lafii sijiinin qoraalkoodu wuxuu ku sugan yahay sijiinka wamaa adraaka maxaad ka taqaan maa sijiin meeshan sijiinka cidhiidhiga ah ee liiska la dhigayo maxaad ka taqaan kitaabun waa kitaab marquumun aad loo xardhay oo aan masaxmaynin waylun tog naareed yowmaidin maalinta xisaabta lilmukadibiina kuwa xaqa beeniyeyba iska leh aladiina kuwiibaa weyl iska leh yukadibuuna biyowmi ddiini maalinta xisaabta kuwa beeniyeybaa weyl iyo tog naareed iska leh wamaa yukadibu bihi mana beenin doono bihi ay biyowmi اddiin maalinta aakhiro cid beeninaysaa ma jirto ilaa aan ka ahayn kullu muctadin axad kastoo xadgudbay asiimin oo dembi u badheedhoo dembiila ah mooyaane laba ruux unbaa aakhiro diida nin dulmi sameeyey oo in dulmigii lagu qaado diidan iyo nin aahaam iyo dunuub iyo macaasi badan galay oo haddana dafiraya labadaasaa inta badan aakhiro inay jirto aan rumaysnayn muctadku waa kii xadgudbay asiimkuna waa kii dembiilaha ahaa oo weliba dabeecad maxay ka dhigtaan idaa tutla haddii lagu aqriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadahayaga qaala wuxuu yidhaahdaa marka aayadaha ilaahay lagu waaniyo war nagala tag asaatiiru alawaliin sheeke bereley baad haysaa sheekadii carabtaad aniga ila socota ayuu odhanaya waa sheeke bereley bay ku qowlaan marka la wacdiyana kalla ha ka yaabin qur'aanku sheeke bereley ma ahan bal iska daaye raana waxaa daxalaystay calaa quluubihim qalbiyaalkooda ayaa daxalaystay maa kaanuu yagsibuuna wixii ay kasbadeen ee dunuub ah ayaa qalbiga madoobaysay markaasaanu xaq iyo baatilkii kala sooci karayn markanuu ku leeyahay qur'aankii waa sheeke bereley sheeke bereleydiiyo waxaanu kala garanayn qalbigiisu hadalka iyo dowga ee xaqa ah sababtuna waxay tahay halkii wax laga fahmi jiray baa madoobaatay oo raan iyo daxal baa fuulay waa yahay bal iska daaya raana waxaa daxalaystay calaa quluubihim qalbigay ka daxalaysteen sabab maa kaanuu yagsibuuna wixii ay kasbadeen baana sababtaa dhaliyey kalla arrinku sidaa ahaan maayo dadow innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinta aakhiro lawallaahi baan ku dhaartay maxjuubuuna ilaahay iyo iyaga waa la kala qarin maalinta aakhiro markay muslimiintu ilaahay arki doonaan kaafirki iyo mujrimku ilaahay ma arki doonee waa laga xijaabayaa waa la kala qarin uma dabadeedna innahum iyagu markay xisaabtii lala qaato ee la xisaabiyo lawallaahi baan ku dhaartay saaluu waxay geli doonaan aljaxiima ilaahayna ma arki doonaan markay xisaabtu dhammaatana lawallaahi baan ku dhaartaye baa ilaah yidhi saaluu waxay gelayaan aljaxiima naarta jaxiima uma dabadeed markay jaxiimo ku arooraan yuqaalu waxaa lagu odhan doonaa ooy malaa'igtu ku odhan doontaa dibna loo xasuusin doonaa si ay isu ciilkaambiyaan haada aladii kuntum bihi tukadibuun haadaa kani alladii waa cadaabkii kuntum ahaydeen bihi cadaabkaba tukadibuuna cadaabkii aad lahayn jirteen waa sheeke bereley maantaba waa idinka haye ka dhaansada ayaa la odhan doonaa kalla arrinku sidaad mooddeen ahaan maayo abidkii inna kitaabalabraari oo dad baa waxay rumaysan yihiin mujrimka iyo mu'minku inaanay ilaahay agtiisa wax farqiyaba lahayn oo ilaahay midna aanu danka lahayn oona cidnaba la soo saaraynin kaa ixsaanka samaynaya ilaahay ku xidhan abaal heli maayo qaar baa rumaysan tii baa ilaahay beeninaya ilaahay wuxuu idhi kalla sidaa ahaan mayso inna kitaabalabraari dadka baariyaalka ah ee ilaahay u dhega nuglaada la fii cilliyiina meelo sare ayaan gaadhsiinaynaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa shayga uu yahay cilliyuuna cilliyuunta iyo meelahan dallacan ee sarraysa maxaad ka taqaanee ku ogeysiiyey kitaabun waa qoraal iyo kitaab marquumun oo aad loo xardhay oo aanu magacu ka masaxmaynin yashhaduhu marbal waxaa soo daawada almuqarabuuna malaa'igta ilaahay ayaa maalinba kitaabkaa cidda ku soo biirta ayay sida maxaanku idhaahdaa albamkan aynu sawirada gashanoo kale ayay kolba yidhahaan maantana yaa ku soo biiray diiwaankii khayrka maantana yaa ku soo biiray diiwaankii ahlu jannaha malaa'ig baa daawata baa ilaahay yidhi albamkiina kitaabun waa kitaab marquumun aad loo nashqadeeyey oo yashhaduhu ay daawadaan almuqarabuuna malaa'igta aan dembaabin baaba idin daawata
ina alabraara kuwii ilaahay baariyaalka u noqday adduunyada ilaahay u dhega nuglaaday la fii naciimin run baan idiin sheegaya wallaahi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi wacizatii wajalaalii baan ku dhaartay kaa'inuuna waxay ku sugan yihiin fii naciimin meel lagu raaxaystaan geeyey cala alaraa'iki sariiro dushood bay yanduruuna ay wax ka fiirsanayaan oo ka daawanayaan tacrifu haddaad aragto tacrifu waxaad aqoonsan fii wujuuhihim wejigooday ku qoran tahay nadrata naciim daymo nicmaysatay inuu wejigaasi ku sugan yahay baad markiiba wejiga ka garan oo adduunyadaba ninka ladan iyo ninka macaluula waad kala garanaysaa wejigoodu siday u kala furfuran yihiin ay kala yihiin aakhirana markaad aragto ruux elujanno ah markiiba inuu nicmaystay ayaad wejigiisa ka garan yusqawna waxaa sharaab looga dhigayaa min raxiiqin dhabaq baa la siinayaa makhtuumin oo ningaxan marka waxaa ilaahay leeyahay sharaab saafiya ayaa la siinayaa dhabaq baa la yidhaa waxaad ka xasuusataa gabaygii qaasim raxmatullaahi calayhi waa kii odhan jiray dacartuba mar bay malab dhashaa ood muudsataa dhabaq marka shayga saafiga ahee macaan baa dhabaq la yidhaahdaa ama malab ha noqdo ama khamri ha noqdo ama wuxuu doonaba ha noqdee makhtuumna waa markuu ningaxan yahay maanta waxay iyagu yidhaahdaan kuwa af soomaaliga aan garanayn wuu moorgaraysan yahay marka maalan sharaabku uu xidhan yahay aan hortaa la furin waxaa la leeyahay wuu ningaxan yahay baynu odhan shisheeyuuna wuxuu wuu moorgaraysan yahay innagoo ningaxnaan haysanna moorgarayn maxaa kuu geey yusqawna waxaa laga waraabin doonaa min raxiiqin dhabaq baa la siin makhtuumin moorgaraysan khitaamuhu heensigiisuna miskun waa udgoon marka la sii heensanayo inta ugu dambaysana miskun udgoon aad iyo aad yani u udgoono miskigoo kale ah ayuu ka sii tegayaa hadduu khamri yahay hadduu kayrkii yahayba wa fii daalika dad yow idin tilmaamaye fii daalika arrinkaa aan idiin tilmaamiya raaxada falyatanaafas ha u baratameen oo ha u tartameen almutanaafisuuna mar ley haddaad aad damacsan tahay inaad asaagaa la tartanto arjannada kula tartan adduunyadani macnama sii lahee haddaad tartanuun aad geli lahayd wa fii daalika arrintaa aan idiin sharxay ee jannadiiyo naciimkaasa falyatanaafas ha u baratameen oo ha u tartameen almutanaafisuuna kuwa baratamaya damiirkoodu nool yahay inay baratamaan raba tacab khasaariyo kugu dhicina jannada u baratan wa misaajuhu raxiiqan iyo dhabaqan la waraabinayo ehlu jannaha waxa looga dhigay biyo lagu walaaqo misaajka lagu walaaqay ama lagu labay min tasniimin il tasniim la yidhaahdo ayaa laga keenay kelmadda asalkeedu wuxuu ka yimid bay yidhaahdeen assanaamu sanaamkuna waa kuruska u sarreeya neefka geela marka il baa jannada ku taalla tasniim baa la yidhaahdaa nebiyada iyo saalixiinta iyo mursaliinta keliya cabba iyadoo aan wax kale lagu darin mu'miniinta kale ehlu jannaha ee darajadaa gaadhin muqarabiinta la yidhaahna in yar inta looga soo qaado ayaa looga dhigaa dhabaqii la siinayeybaa loogu labaayoo loogu walaaqaa iyadoo saafiyana muqarabiinta ayaa cabba in yarna waxaa looga walaaqaa kuwa kale ee ehlu jannaha ah marka ilaahay wuxuu yidhi biyaha lagu walaaqay tasniimkan iyo dhabaqan waxaa laga keenay il jannada ku taallo oo tasniim la yidhaaho aad u sarraysa cayn haddaba tasniim innagu ma naqaano ilaah baa sharxaya caynan waa il yashrabu ay cabbaan bihaa iyada almuqarabuuna inta ilaahay u dhow maca annebiyiina waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin afarta ehlu jannaha ugu sarsareeya ee heerka sare ah kuwaasi iyadoon wax kale lagu darin iyay ishaa toos uga cabbaan waa il wax loo dhiga aan lahayn macaankeeda iyo udgoonkeeda muslimiinta kale jannooyinka ka hooseeya muqarabiinta deganna marka wax loo walaaqayo iyadaa in yar laga soo garoocaa waa loogu walaaqa min aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah wa idaa maruu markay mu'miniintu soo ag maraan saxaabadii iyo nebigu iyo markay soo ag maraan abaajahal iyo kuwa la midkaa yataghaamasuuna way isu iljebiyaan bihim iyagaa laysoogu iljebiyaa khamsigu waa iljebinta marka koox muslimiinii ay soo ag maraan niman gaalo oo meel farfadhiya
ayaa gaaladu isu iljabisaa dabadeedna waxaa laga dhigtaa riwaayad waidaa maruu markay mu'miniintu soo maraan bihi gaalada yataqaamasuuna gaaladu way isu iljabiyaan iyagoo raba inay ku tahakumaan oo ku jeesjeesaan muslimiinta waidanqalabuu markay gaaladu noqdaan ilaa ahlihim markay caraabayaanay guryahooda ku noqonayaanna inqalabuu way caraabaan fakihiina iyaga oo ku sii maaweelanaya sheekadii muslimiinta iyagoo maaweelo ka dhiganaya iyo raaxaysi muslimiinta sidaan u galay ma arkaysay sidaan hadalka ugu tuuray ma arkaysay dhagixii aan ka dabageeyey ma arkaysay iyaga oo sheekadaa ku mabsuudsan oo ku sii raaxaysanaya bay guryahooda ku sii caraabaan gaaladu waidaa ra'awhum markuu gaalku muslim indhaha ka qaadana qaaluu waxay yidhaahdaan inna haaulaa'i la daalluun inna haaulaa'i kuwan muslimiinta ma aragtaan waa la daalluuna waa kuwo baadiya muslimkaa la liito inay ambad yihiin bay ku tiriyaan muslimiinta wamaa ursiluu calayhim xaafidiin war miyay dan kala waayeen muslimkanuun ay daba socdaan maxaa daba dhigay wamaa ursiluu yaa u dirtay calayhim muslimiinta xaafidiina yaa ilaaliya yidhi yaa iyo dabagala yidhi arrinkoodanunbay daba socdaane yaa u dirtay wamaa ursiluu loomaba diran xaafidiina calayhim muslimiinta ka warhaya miyaan ku idhi gaaloy maanaan odhan baa ilaa yidhi haddaba sow aakhiro maanta lama joogo falyowma maantoo aakhiro ah aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ahaa min alkufaari yadxakuuna iyana waxay maanta ku jeesjeesayaan oy ku qoslayaan min alkufaari gaaladu markay cadaabka dubuq tidhaahdo ayay muslimiintu ku qosli doonaan alyowma falyowma maantoo aakhiro ah aladiina aamanuu mu'miniintii sabray adduunyadu yadxakuuna waxay ku qoslayaan maanta min alkufaari gaaladii bay maanta iyana ku qoslayaan mu'miniinta jannada ku jirta kaa'inuuna waxay saaran yihiin cala alaraa'iki sariiro yanduruuna halkaasay ka fiirsanayaan gaaladii iyo cadaabka ku baxaya hal huwiba alkufaaru gar baan maanta idiin dhiibayaaye hal huwiba sow lama abah ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii ma laga abaalmariyey maa kaanuu yafcaluun waxay adduunyada shaqaysteen ay ku sameeyeen muslimiinta abaalkeedii maanta sow ma haystaanoo iyagoo cadaabkii ku dhex jira sow laguma qoslaayo suuratu linfiaar suuraddana suuratu linfiaar baa la yidhaahdaa waana suurad makiya aayadaheeduna waa 19 aaya waa 19 aayadood waxay ka warrami doontaa iyada iyo suuradda kale ku soo xigta suuratu kuwirat waxay ka warramayaan inqilaabka laxaadka leh ee lagula wareegi doono sha'niga adduunyada oo dhan oo qaabka maanta adduunyadu ay u dhaqanto tamaaman uu isbedeli doonaa marka aakhira timaado isbedelka dhici doonay aad uga warramayaan suuraddan suuratu linfiaar baa la yidhaha ereyga infiaar iyo inshiqaaq waa isku macno inshaqat way dilaacday infatarat way dilaacday macno kale ha u raadine inshaqat ida samaa inshaqat waan ku soo idhi samadu markay qararanto ama ay dilaacdo haddii lagu yidhaahdo ida samaa infataratna waa la macno qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi idaa goorta alsamaa'u samadu infatarat ay kala dildilaacdo waidaa goorta alkawaakibu xidiguhuna intaharat ay soo daataan waidaa goorta albixaaru badaha a aragteenna fujirad laysu wada faruuro atlantic ocean iyo indian ocean iyo pacific ocean waxa waa laga tegayaa baa ilahay yidhi dhammaantood waa laysu furayaaba waidaa goorta albixaaru badaha fujirad laysu faruuro waidaa goorta alqubuuru qabriyaalkana bucirad la cararogo ereygaa bucirad horaan kuugu soo sheegay oo aan waataan ku yidhi suurat alcaadiyaat waa inay ku soo marray alaa yaclam idaa bucira maa fi lqubuuri waxusila maa fi suduur bucira maxaan ku sheegay marka la carragediyo waidaa goorta alqubuuru qabriyaalkana bucirad marka la soo cararogo maalintay xaaladdaasi timaaddo calimad way garawsan doontaa nafsu naf waliba waxay garawsan doontaa oy ogaan doontaa maa qadamad wax allaaliya waxay geysatay wa akharad iyo waxay taariikh ka tagtayba waxay gadaal ka tagtay iyo waxay iyadu geysatayba waa arki doontaa marka iyadu markay noolayd wixii ay geysatay waa la tusi wixii ay taariikh ka tagtay lagaga daydayna waa la tusi hadduu ruuxu khayr adduunyada intuu falo lagaga daydo inta camalkaa lagaga dayanoo dhan khayr buu ku leeyahay hadduu qofku shar bilaabo oo sharkaa lagaga daydo inta sharkaasi uu sii shaqaynayo o dhanna haba dhinta kii sameeyeye isna qayb buu ku leeyay percentage marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaad kasbateen iyo waxaad taariikh dhigateen labadaba markaasaa la garwaaqsan doonaa
يا أيها الإنسان ضدوا سؤال عن ذي ويدية ما غرك محاكاه هوساسية كدغي بربك الكريم الله ديقسيغا waxaad kaga kaaftoontay ku dagay ii sheeg غرورku waxa weeyaan waa dagsiimada waa dagan tahay la yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa la yaghurrannakum yu'idin hoosasinin yu'idin khayaamayno idin dagin tiba ilaahay leeyahay haddaad maanta caafimaad qabtaayo aakhira aanad joogine bal gar qaado oo ila hadal oo sababta aad ilaahay lagaaga khayaameeyay ibliis aad u raacday ii sheeg yaa ayuha al-insaanu dado ma sababteeba gharraka ku hoosaasisay birabbika rabbiga maxaa ka khayaameeyay oo ku dagay al-kariim allaha deeqsiga waxaad nicmo haysato dhan ma ilaahay baa ku siiyay inaad rabbiga ku caasiday kula ahaatay alladhi allihi maxaa ka hoosaasiyay khalaqaka ku abuurtay fasawaaka ee ku dhammaystiray facadalaka ee ku toosiyay sida xayawaanka kuma soo leexinine wuu ku qotomiyay fi ay suuratin suurati ka ahayd ma shaa ee uu damcaybu rakabaka ka dhisay qaabkan aad u dhisantay suuradan aad u dhisantay waa suuradu isagu ku jeclaaday weeye sawirkii ugu fiicnaayo ilaahay ku dooray ayuu ka sameeyay fi ay suuratin suurati ka ah ما شاء أو دمعيبو ركبك كادسي إله سيدا كو حناني عقلك يقر شدا كسيي سيدا بهايمت أفرقات ليال كاديغن أفرت كسعودا إله سيدا سي كريم كدغداد هيساتو اوردن هدا ترسنا aanad koobi karaynin sababta aad kaga maarantay lagaaga khiyaamay balka sheeke kala arsidan ahaan mayso oo waliga sida ku jirimays maad ka joogi iyadoo sidaas xeesha dheer la loo wacdiyay maxaa ka soo baxay dadkii bal iska daayay iyadoo si naxariis leh oo dan ah wax loogu sheegay bal iska daayay tukadibu waanadii ku mari mayse tukadibu waad beeninaysaa haddana bidiini inay xisaabi jirtoba maba rumaysnid waad beeninaysaa وإن عليكم لحافظين كدر صو حسابتنا إن عليكم وحدشي نصارا لحافظين كوائذ إلى اليوم ملائكة كراما أو إلهي أكتيس كرامة كله كاتبين سدا وحلو قرنا يقان أو عمل كين قرية يعلمون ويكور هيان ملائكة هاسي ما تفعلون شري خير واحد سمين يسامبا إن الأبرار هدبا ضدكي باريال كالنقضي لفي نعيم نعموين بيها يقو هالكا كجيران وإن الفجار كويد فاجرين تحت قد بينا لا والله بان كدارتي في جحيم بي يقو كجيران يصلونها ويقلي دونا النار تاس جحيمة يوم الدين مالنت الدين تي مالنت حسابتا وما هم منع أهان دونا انبا عنها النار تحق إذا بغائبين السنة بأوغا مغنان كران نار تأيضا ميل أي كغدو من كران iyo meel ay kaga gaban doonaan wallaanay u jirin sinaba ugama maqnaanayaan wama hum may ahaanin mujrimiintu anha naarta xageeda bigaa'ibina sinaba ugama meeraysan karaan oo ugama maqnaan karaan gaa'ibku waa kii maqnaa wama adraaka maxaad ka taqaanaa ruux yahow ma yawmuddin maalinta xisaabtu waxay tahay aan kuugu celiyay haday su'aasheedii hore ku dhaaftay aan kuugu celiyo qalbiga la garaacaya u fiirso thumma ma adraaka aan kuugu celiyay maxaa ka ogeysiyay ma yawmuddin maalinta diinkiya xisaabta maxaa ka ogeysiyay yawma maalin weeyaan aan ku macneeyay la tamliku aanay hanan karin nafsun nafina li nafsin nafkaleeto shay'an nafina nafkale maalin aanay waxba taaran karaynin weey inan iyo aabihi inan iyo hooyadeed isma taaranayaan والأمر قوانك يتلدنا يومئذ مالنتا لله إلهي كليا أي أصبناتي سورة التكوير سورة التكوير بالله يرهدايو مكيكو سودكتي آية هذونا 29 آية وحال يرهدا وسورة أغو قابين حيل دير صورك إيو انقلابك أونك يا الدنيا دا كو إيمان دونا meel walba saameyn doona suurada aad u faaqiday weeye suuradani maalinta aakhiro halkay maalinta qiyaamada siday meel walba u taaban doonto u gacan togaaleynayso ayay si fiican oo faahfaahsan ay u sharxaysaa ay dhageyso idaa goorta ash-shamsu qorraxda kuwirat la duubo ee nuurka laga qaado kawara wuu duubay weeyaan
كورة وضوبي وي إذا قورت الشمس قرحدة كورت مركا للضوبة وإذا قورت النجوم حدقوهنا انكدرت أي داتان انتثرت نوان كوسو شيء ويسكو معنو وإذا قورت الجبال بورها دابان أركتين اللي حادك وين له سيرت للدقاتيو أي دقاقان وإذا قورت العشار عربي waxaad aad u jeceshiin geela ay aad u jeclaayeen carabtii Quraysheed way ku dhiman jireen sida Soomaalidu ugu dhimato hasha sidkeedii go'ay ee ilmaha dabadhoonka Allah hor la daba dhigay carwa hashaasi haday lunto adiga u dhimanaya la yiraahdo ee ay jecel yihiin marka sidkeedu go'o hashi sida ahayd ee ku dhaadan jirteen utilat marka la catile ee damba laga gali waayo وإذا قورت العشار هش سدكيدي قعي عطلت مركا لدنين وايو وإذا قورت الوحوش هبر دقاقي يسدرها حشرت ميلا يسوقو كينو ديرئيو ورابا ميلا يسوقو كيني لباحيو وحالا يسوقو كينيا محان كورا هذا قودر با ميلا يسوقو كيني هذانا اسمهم قرينيان وإذا قورت الوحوش هبر دقاقنا حشرت لصو أروريو وإذا قورت البحار أركتين سجرت مركا لشدو بدها أركتين با دبكو ساوغ بودي الدونا مركا انرتي انتهل اقبا بدها كلولين كراو ملاينسا انديانا اوشنك باسيفيك اوشنك بدها شنطة اواوين waxa shidi kara iyo oogta lagu kululayn kara bal qiyaasa idinkuba وإذا قورت البحار بدهنا سجرت لشدو وإذا قورت النفوس نفها دمان تودنا سوجت لا يسكو سدكو نف والبنف با لغو سدكيا شمبير بشمبير تيداي لدولي دونتا كل طير يطير مع شكله مؤمنكم لدو راعيا مجرمكم لصف نقون دونا وإذا قورت الموؤودة حبله يريراي لحبال نولولين جرينا سئلت مركا الله إصلاح حساب تميل إسويديو إلا يراهدو بأي ذنب آدي أي قشي محي أهيده قتل لقد لي هل كاسي هوين كتاقناي قبل الإسلام إيقو نول إلا حبال نولوليو ليسو قتك ما يبا إلهيني وإذا قورت الموؤودة حبله إلا حبال نولوليين سئلت ليسويديو بأي ذنب آدي أي قتلت لقد لي بأ ليسويدين وإذا قورت الصحف وراقه عملك وكقرانا نشرت لك لفديو نول بكتاب كسيب الله كلفدين وإذا قورت السماء سمدنا كشطت سيدا هرق النفق اللوغا سارو كلا لو فيدو سمدن سيدي هرق لفيدو وكلا لقدق وإذا قورت السماء سمدنا كشطت لفيدو وإذا قورت الجحيم مركا النار تجحيم الله يرانا سعرت آدي آد لو أولوليو وإذا قورت الجنة جنة أسلفت لسود ويو انت سو حالة مالين بيدعي دونان مركي حالة صدا عديدك النقطة شأنك أي حالة داس أي تماد محادعي دونا واتن دارتي يدقيسو علمت قرواقستي نفس النف ولبا ما أحضرت وحي أي كنستي أحد ولبا وحي وصوش قيستي أنيق نندفر دونا مجرو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة باكدع الدونتا علمت مركاسي قرواقستا نفس النف ولبا وحي قرواقستي مالنتا ما أحضرت وحي أي سو حاضر ستي سو شقيستي انتا سوى قيامه كتابك القرآن كي حق نمدي سنة ودارتا وسعتا فلا أقسم أي فأقسم وحان كل دارنا يا با إلهي الخنس كوى دونتا الجواري وحان كل دارنا يا كوى أرضه الكنسي قددكودا قلا محال لوغا جيدا xidigahan inaga sareeya waa laba qaybood qaybi way socotaayo markaasay hadana god ka gasha qaybina marka cadceedu soo baxdo bay cadceedu inaga qarisaayo halkooda iska taagan yihiin iyagu ma dhacaan halkooda isagu daa'im iskaga yihiin kuwa cadceedu ay qariso khunnas baa la yiraahdaa waa kuwa cadceedu inaga qarisay wali sidii cirka u jooga kunnasna waxa la yiraahdaa kuwa godadkooda gala ee meerayaasha ee sida cadceeda iyo maxaan ku ramaa maarikhiyo kuwaas oo kale iyo Jupiter iyo kuwaas oo kale la yiraahdaa
haddaba khannasa wuu qarsoomay weeye kannasana kannaas ereyga waxaa laga keenay godka ay galaan deerooyinku deeradu godkay gasho ayaa kannaas la yidhaa cadceedda weyn ee boqolaalka kun ee jeer dhulka ka weyn ayaa ilaahay wuxuu ka cabiray deero yaroo godkeeda gashay siday ilaahay agtiisa ugu yartaa lagu baraya cadceeddu ilaahay agtiisa kuma weynaa deero god gashay oo kalea la moodaa baa ilaahay yidhi waidaa goorta waa yahay falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa alkhunnasi kuwa dhuunta ee cadceedda iftiinkeedu idinka qariyo waa xidigaha aljawaari meerayaashaan ku dhaartay alkunnasi ee godadkooda gala sida deerada walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa cascasa goortuu soo af yeesho kelmadda cascasa waa laba afley waa erey laba macno ah habeenku markuu soo af yeeshana cascasa leylu baa la yidhaahdaa habeenku markuu sii jeestana cascasa leylu baa la yidhaahdaa waa erey laba macnoola ah weeye waidaa walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo af yeesho walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa cascasa markuu sii jeesto ee uu sii baxayo wasubxi aroortiyo waxaan ku dhaartay hiirta waa beri idaa goorta subuxu tanafasa uu soo neefsado ee adduunyada uu iftiinka ku soo baahinayo intaasoo masalaan ku dhaartay innahu qur'aanku laqowlu rasuulin kariim waa qowl rasuul aad u sharaf badan aanu u soo dhibnay waa malakuljibriil ah kalaam uu soo gudbinayo malakuljibriil weeyaan malakuljibriil aan kuu sifeeya baa ilaaha yidhi dii quwatin malakuljibriil waa axad awood u saaxiiba cinda dilcarshi ilaaha carshiga u saaxiibka agtiisana makiin wuxuu makaanad buu ku leeyahay ilaahay agtiisana sharaf iyo makaan sare ayuu malakuljibriil ku leeyahay laba sifuu kuu sheegay malakuljibriil inuu xoog badan yahay malakuljibriil ilaaha carshiga u saaxiibka agtiisana inuu makaanad ku leeyahay malakuljibriil 600 oo garab buu lahaa hal garab keliya ayaa qowmkii reer luud intuu dhulka hoosta ka geliyey ayuu samaawaadka ula carceeray dabadeedna ku soo afgambiyey waa hal garab mutaacin waa malag laga ogol yahoo laga maqlo amarkiisa xagga samadoo malaa'igtoo dhan buu amarka siiya uma amiin halkaa aan ka warramaynee laga adeeco samada ana amiin waa axad aaminoon khayaamo aqooni weeyaan waa malakuljibriil wamaa saaxibukum saaxiibkiinna oo nebi muxamedihi ma ahaanin bimajnuunin sidaa u fisheen ma aha oo ma waalla walaqad ra'aahu lawallaahi baan ku dhaartay nebi muxamed waxaa xaqiiqa inuu malakuljibriil arkay bilufuqi lmubiini jihadaa aad mooddo cirka iyo dhulku inay iska haystaan markaad meel bannaan joogto ee aad si aada u eegto halka kaa horraysa waxaad moodaysaa cirka iyo dhulku inay is haystaan ufuq baa la yidhaa jihadaa dhulka iyo cirku inay iska soo gaadheen aad u mooddo indhahaaga beentooda intaasoo dhan buu ka daawaday nebiyullaahi moxamed suuradda saxda ah ee malakuljibriil maalintii uu ugu yimi qaaru xira iqra' markii uu ku yidhi dabadeed halkaasuu ku arkay walaqad waxaa dhab ah ra'aahu inuu nebi moxamed arkay jibriil bilufuqi jihooyinkaa cirkiiyo dhulku ay iska qabsadaan almubiini ee idiin muuqata wamaa huwa ma ahaanin nebi moxamed cala alghaybi shayga idinka maqnaayo uu idiin sheegayo bidaniinin ay bibakhiilin waxyigan idinka maqnaaye haybka idinka ahaa nebi moxamed ma bakhayle siday ahayd buu idinku sheega daniin ay bakhiil weeye nebi moxamed bakhayl xaqa idinka qariyey ma ahan wamaa huwa ma ahaanin qur'aanku biqowli shaacirin biqowli shayطaanin shayطaan hadalkiisii ma aha sida ay carabi tidhaahdo shayطaan baa wax u sheegay bay nebiga yidhaahdeen tii buu ilaahay ka anfinayaa wamaa huwa qur'aanku ma ahaanin biqowli shayطaani rajiim shayطaankii la fogeeyey qowlkiisa ma aha qowlka shayطaan wax dila wax dhaca wax laaya wax xumeeya wax fasahaadiya buu yidhaahdaa qur-aankan kariimkii miyuu ka hadlaa arrimahaasoo dadka ku booriya maya sidee la isugu aanayn karaa ibliisoo macaasi iyo xumaanun dadka fara iyo qur'aankan khayrka dadka amraya fa ayna tadhabuuna war xaggee ula kacdeen war ibliis iyo sidee isugu aanayseen qur'aanka fa ayna tadhabuuna xaggee la aadeen isma qabtaan labadani ibliis baa waxaan sheegay iyo ibliis iyo dhaqankiisoo taqaaniin waa meeraysi unbay idinka tahaye arrinka xaggee la aadeen oo marka qofka intaad hadal tidhaahdo meel kale uu u jiito ayaa la war xagga hadalka ula kacday
وكني شاعرك أو نجري هل كان كهد لي وكا كمان دافشي هذا الكي ماشي لو لتش ده ورد في السنباء إلى هيدي والقرآن كانوا ما هذا قول الشيطان ما نقول كره حقال لا أدين إن هو أي ما هو قرآن كان ما هان إلا ذكر وانو أي أصعد للعالمين الرأي ذيك أردن بالجواني يا قرآن كان أنك أردن بوانا وياي شيطان وحبو فسهادية لمن شاء منكم يوسوانا لمن أحدك شاء الدونا أو منكم إذا كمدا أن يستقيم إنه توصو أحد كستوقع عن صدا إنه حماها كرمه أو توصو أيوانا وياي لمن روح بوانا وياي شاء الدمعة أو منكم إذا كمدا أن يستقيم إنه توصو وما تشاءون قرآن ما قادن كرتان إلا أن يشاء الله إنه إلهي إذن تاجر مويان وإلهي دون مويان رب العالمين عرّ إذا لما أنت الله الرب جاء أي تلادو إذن كجلا لانتو إذن كجحلانتا إلهي بانا كوجودان أرين كيسة إلهي لا أنت قرآن إذن صعنا يا مجرى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم